halkan waa taalada daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho sida ku muuqata waxay maanta ku burburtay qaraxii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay 10kii barqanimo ee qadar 20 daqiiqo ah si rasmi ah bartan waa bar kontarool oo lagu hubiyo gaadiidka u gudbaya wadada marta madaxtooyada Villa Soomaaliya kana dhacda Xaawataako sida idin muuqata waxa ku burburay inta ugu badan gaadiidkii safka ugu jiray hubinta waxaana kamid ahaa gaadiid ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga booliiska iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo iyagu waqtigaas u socdaalayay xarunta golaha shacabka oo maanta fadhi ku lahaa ilaa inta la xaqiijiyay indhaheennuna ay qabteen tirada dhimashada waxay kor u dhaafaysaa in ka badan 20 ruux halka dhaawacuna uu intaas ka badan yahay ka sukow khasaaraha dhimashadii dhaawac waxa uu qaraxani geystay burbur badan oo soo gaaray dhismooyinka ka agdhawaa sida gurihii dadka barakacayaasha ay deganaayeen ee wasaaradii hore ee caafimaadka daljirka Dahsoon oo iminka aan taaganahay xaruntii hore ee baarlamaanka oo markii horeba burbursanayd wasaaradda batroolka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhabarkayga ka muuqata iyo iskuulka Yaasiin Cismaan oo gacanteeda midig ah waxa uu sidoo kale iskuulkan saameyn ku yeeshay qarax kan ka horeeyay oo ka dhacay meel aan ka fogeyn goobta maanta uu ka dhacay mid ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa kolka qarax uu dhacayay kana mid ah barakacayaasha ku nool xaruntii hore ee wasaaradda caafimaadka ayaa sidan u sheegay KNN indhahay waxaan ku arkay hal gabar oo masaakiin oo degan tahay iyo gabar kale oo degan tahay dhaawacantay wiil askari oo ku dhintay meesha ah iyo wiil kale oo dhaawacmay burburka caadi ilaa 25-30 guri meelaas oo ku taala kulli ilaa gudaha hoos burburka waa ka dhamaada meesha dad badan oo ku baabaceen meesha asayda ah kolkii boqol dad dhaawaca ay ku jiraan naag lugta ka jabtay dhabar ay tahay isbitaalkan dhawaan geynay gabar kale oo masaakiin ana waa hadda mid kale lagu maqayaan la soo duubay warar ay heshay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waxa ay sheegayaan in gaarigan oo ka yimid kontarool kan ka horeeya kaas oo ku yaala wasaaradii hore ee amniga oo ciidamada booliis gaadiidka marka hore ay ku soo hoyaan kadibna halkan ay u soo gudbaan gaadiidka waxaa saf ku jiray gaadiid saraakiil ciidamada militariga ka tirsan iyo xildhibaano oo iyagu hubinta sugayay gaariga ayaa la sheegay in lagu dhiftay gaari ay saarneed gaashaanle sare Fay Cali Raage oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga waxa wararku ay sheegayaan in ay ahayd umul in ka yar 20 cisho ayay dhalneed si la mid ah dadka geeriyooda waxa ka mid ah saygeeda iyo wiil ay dhashay iyo dhammaanba ciidamadii la socday marka laga reebo hal askari oo isagu hubinta ku maqnaa marka qaraxa uu dhacay sidoo kale gaarigan aad u jeedaan waxa gudaheeda saarnaa xildhibaanad Seenab Caamir oo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan kuna jeeday markaasi kulanka golaha shacabka si la mid ah waxa uu dhaawac soo gaaray darawalka xildhibaanada sida ay noo sheegeen ila xog ogaal ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah ilaalada xildhibaanad Seenab Caamir waxa uu sidoo kale dhaawac uu soo gaaray xildhibaan Xasan Shabeel oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa dhammaanba dhaawac xildhibaanadaasi laga shaaciyay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta qudoodu kalfadhigoodu u baaqday kooram la'aan